kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada maqaal kale oo aan si gaar ah ugu ifin doono xaaladihii ugu dambeeyay ee Israa'iil iyo Falastiin dhimashadu oo tirabeel noqotay dhaawacyada oo sii buux dhaafinaya isbitaalada ku yaala dalkaasi Falastiin ayaga oo lagu sii daabulayo meelo ka baxsan dalka Falastiin ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada waxaa qayb ka sii ah dowladda Israa'iil oo sii kordhinaysa duqeymaha ay ka geysanayso Gaza iyadoo dhawaan gantaale ay la beegsatay xarun ay ku sugnaayeen dad barakacayaal ah oo ku taala magaalada Gaza iyo rabshadaha ka soconaya gudaha dalka Israa'iil oo u dhaxeeya booliska iyo sidoo kale carabta degta dalkaasi Israa'iil oo gacmaha isula tagay iyadoo laga soo warinayo khasaaro hor leh dhismaha ay deganaayeen TV-ga caanka ah ee Al Jazeera ayaa dhulka lala jaray iyadoo Israa'iil gantaalu ay la beegsatay qodobada iyo kuwa kale ayaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal ee u diyaar garooba iyagii oo intaa ka dhameystiran aynu ku bilaabnay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in duqeyn ay diyaaradaha Israa'iil ka geysteen xeero ku taala dalkaasi Gaza oo ay ku sugnaayeen dad barakacayaal ah ay ku dhinteen 7 qof mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadka dhintay ay ka mid yihiin caruur iyo qof dumar ah oo ku sugnaa xerada Al-Shati ee waqooyiga magaalada ee Gaza xogaga Falastiiniyiinta oo ka falceliyay duqeynta ayaa gantaalo ku gaadhay ama gantaalo la dhacaya magaalada Beersheba ee ka tirsan dalkaasi Israa'iil ku dhawaad 140 qof ayaa ku dhimatay Gaza tan iyo markii ay colaadu bilaabatay Isniintii gantaalada Falastiiniyiinta ayaa gudaha Israa'iil waxay ku dileen 8 qof oo u dhashay dalkaasi Israa'iil iyadoo oo hal qof oo kale oo u dhashay dalka Hindiya uu ku dhintay halkaasi colaadda Gaza ayaa dhalisay in rabshadaha ay ku fidayaan deegaanada ay Israa'iil haysato ee daanta galbeed halkaas oo ay isku farasaarayaan Falastiiniyiinta iyo sidoo kale xogaga ammaanka ee Israa'iil ugu yaraan 10 qof oo Falastiiniyiin ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen rabshadaha daanta galbeed halka boqolaal kale ay ku dhaawacmeen halkaasi xogaga ammaanka ee Israa'iil ayaa dibadbaxayaasha u adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa iyo rasaasta cinjarka iyo sidoo kale xabado nool halka Falastiiniyiinta ay tuurayaan bambaanooyin sidoo kale batroolka laga sameeyay xiisada halka ka taagan ayaa lagu tilmaamay tii ugu xumeyd ee gobolka soo marta qaramada midoobay ayaa jimcihii sheegtay in qiyaastii 10,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka barakaceen guryahooda oo ku yaala Gaza colaadaha Israa'iil ay ka wado magaaladaasi Gaza awgood haddii aynu sii eegnana qodobada kale ee barnaamijka Israa'iil ayaa burburisay dhismaha deganaayeen warbaahinno caalami ah dhismo ku yaala marinka Gaza oo ay deganaayeen warbaahinta Al Jazeera iyo IB ayaa burburay kadib markii Israa'iil ay duqeysay kahor weerarka waxaa lagu wargeliyay laga guuray dhismaha kadib markii milkiilaha dhismaha ay digniin u dirtay Israa'iil sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee Reuters dhismaha waxaa ku yaalay xafiisyo sidoo kale guryo laakiin waxaa soo sheegayaan wararku in burbur xoogan uu soo gaaray dhaawacyadii ka dhashay duqeymaha in Israa'iil ka geysanayso gudaha Falastiin oo isku sii dhawaanaya 1,000 qof ayaa u baahanaya in meel ka baxsan ama isbitaalada ku yaala magaaladaasi ay buux dhaafiyeen taasi oo dalka Masar gurmad ay ugu sameeyeen dadka dhaawaca ka soo gaaraya duqeymaha dalkaasi Israa'iil ka geysanayso Gaza Masar ayaa 10 ka mid ah gawaarida gurmadka degdeg ah u dirtay marinka Gaza si ay u soo daabulaan dadka ku dhaawacmay duqeymaha Israa'iil si loogu daweeyo isbitaalada Masar sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi gawaarida gurmadka degdeg ah ee Masar ayaa ka talaabay xadka Rafah wararka waxa ay sidoo kale sheegayaan in gawaari kale oo gurmad ah ay u dirtay Gaza kuwaas oo la filayo in xilli dambe ay gaaraan halkaasi waxaa lagu wadaa in dadku dhaawaca ah ay qaabilayaan 3 isbitaal oo ku yaala dalka Masar sida lagu sheegayo ama sida ay tilmaamayaan saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi Masar saraakiishu ku sugan Gaza waxay sheegeen in 950 qof ay ku dhaawacmeen tan iyo Isniintii oo dagaaladu ay ka qarxeen dalkaasi Israa'iil
waa hagaagay saaxiibayaal waa naga intaa maqaalkii aan ku eegayna xaaladihii ka taagnaa dalkaasi Falastiin iyo Israa'iil waxa xasuusinayna naga mudan in xaaladaha ka soo kordha marinkaasi ama dalalka Falastiin iyo Israa'iil aynu maqaalo kale aan ku soo gudbin doono oo isha inagu hayaan naga dheeraanin waxaan ku xasuusinaynaa inaad subscribe saarto channel-keena si muuqaalada kale aan soo gudbinayno si dhaqso ah ay ku soo gaaraan mahadsanida